الله الرحمن الرحيم. صاحب سودو هذا weli waxaan ku jirnaa markaa page command keeni aan dhiganay markaa videoga hore waxaan kusoo qaadanay dhowr mid ilaa 6 mid markaa haddaan sii wadno command keeni wuxuu noqonayaa cp waa copy markaa file aad intaad meel ka copyso aad meel kale ku copyso doonayso ayaa cp la adeegsadaa markaa aynu horta muxuu ahaa dhex galno folder ay noogu jiraan document-kaas aynu galaynaa ee document-ka loo dhex galayno videoga hore kusoo aragnay cd baad qori folder-ka magaciisa kadibna enter baad siin marka haddaan ls nidhaahno imika waxay noogu jira test2 iyo text bay noogu jira test2 iyo text marka labadaan aynu doonaynaa inaynu koobiyeyno folder-keena music aynu ku koobiyeyno kadib waxaan adeegsan doonaa cp markaa waxaan doonaynaa inaynu ogaano horta muxuu halkan joogno folderkan joogno command-keeni koowaad ee ugu horreeyay soo aragnay wuxuu ahaa aan soo zoom gareeyo command-keeni koowaad ee aragnay wuxuu ahaa twt wuxuu ku tusayay meesha aad joogto markaa hadda waxaan joognaa home carrier document-kiisa ku dhex jirnaa markaa file-ka document ku dhex jira baan doonaynaa inaynu ku koobiyeyno muxuu ahaa folder-ka music-ka sidaynu u koobiyeyno markaa waxaynu adeegsan doonaa cp magaciisa aynu qori markaa waxaynu qori text.txt markaa waxaynu samayn doonaa waxaynu sheegi doonaa location-ka markaa samaynaysaa kasoo bilaabaysaa folder-ka horeeya dabeed u qori halkaas umaynu ku bedelaynaa folder-ka inaynu ku koobiyeyno file-ka // isticmaali home /carry folder-kan doonaynaa waa kaa marka laba habayn samayn karnaa magaciisa in koobiyeysan karnaa right click copy galaniman in ku paste karayn karnaa marka inta baynu siin inaan markaan siino dana sinaano file-keena xagga inoogu jira marka aynu soo eegno bal folder-kii muxuu ahaa music inuu inoogu koobiyeysanay text-gaasi waxaan samayni saad uga wada baxdo folder-kan document-ka waxaad qori cd keliya enter baad siin deedna ls badanan waxaad joogtaa marka desktop-kii baad joogtaa marka waxaan doonaa inaynu ku wareegno cd music baynu qori marka deedna enter baan siin ls baynu odhan text-tigaynu soo koobiyeyna waxaaga noogu jira text file-kaas soo koobiyeynay markaa saasaa loo koobiyeyaa ka kale inoogu xigaa wuxuu noqonayaa muxuu ahaa mv mu noqonayaa ama move laba haba loo isticmaalaa in faylasha lagu move gareeyo imika kuwaynu koobiyeynay inaynu move garayno ayaynu adeegsan karnaa inaynu rename ku samaynaba markaa kaa text-gaas aynu rename ku samayn doonaa horta waxaynu dhex geli doonaa folder-kii ka maqannahay waxaynu adeegsan doonaa cd music intervention ls haddaynu idhaahno annagaan ku dhex jirnaa marka waxaan odhan doonaa mv text.txt deedna space baad wix magacii cusbaayadu bixinaysa markaa qori marka waxaan qoraynaa text3.txt intaa waxaad qorto enter baad siin deedna waxaad eegi markaa in magaciis bedelayn karo okay text3 bay noo noqotay markaa kaana saasaa loo adeegsadaa mv-ga si markaa file-shan text-ga aad u ogaato wixii ku dhex jira waxaad adeegsanaysaa markaa command-ka la yidhaahdo cat kaas bayn doonaa inaan wax ku dhex jiro ogaano magaciisa soo koobiyeysanayna right click copy markaan ku paste garaynaynaa markaa enter baynu siin intaasay noogu jirta marka laba habbaa loo ogaadaa kanisan kuu tusayaa haddii aad nano is adeegsatana waa isku mid nano text3.txt way kan wada dhigin kartaa imanka markaan cat tiraahdo edit male wuxuu ku tusayaa content-kii ku dhex jiray casharka ama folder-kaas laakiin kan markaad ku furto edit baad ku samayn kartaa waxbaad ka bedeli kartaa marka nano naqadato iyo file-ka magaciisa interactive waa kan waxaad ka bedeli kartaa waxnaad ku dari kartaa
taasoo kale tusaale ahaan deedna control x baad taaban markaas si aad uga baxdo wuxuu ku weydiin maad save garaynaysaa haye maya marka labadaa xaraf midaad qori yes baad taaban enter baad markaas siinaysaa deedna markaa marka mar labaad haddii aynu kaadkeena ku furno kaadkadeen ku furno waxbaa isbedelay oo kaa haddaad doonayso meeshakani waxaa intaasaa kusoo biirtay markaad doonayso inaad contentka eegto keliya kaad baad adeegsanaysaa markaad doonayso inaad edit garaysana nano baad adeegsanaysaa oo text editorkii weeye nano kan kalena wuu ku muxuu ahaa wuu ku display garaynayaa uun contentkii ku dhex jiray filekaas commandkeena xiga wuxuu noqonayaa sudo waxaa la adeegsadaa markaad la soo degayso muxuu ahaa aad la soo degayso maya afwan markaad la soo degayso maaha sudo waxa weeyaan waxay u taagan tahay super user dhuyo waxa weeyaan waa root-kiiba dhex galaysaa haddaad sudo ka horreysiiso faylka ase root baad u adeegsanaysaa markaa waxaad dhex galaysaa administrative-kii markaa isaga waxaa lagu horreysay markaad muxuu ahaa aad file root-ka kasoo kacayaad doonayso inaad adeegsato ma faylkaad root ku save garayso ama as a root ugu ran garayso ma sudo baad ka horreysiinaysaa marka sidoo kale markaad update garaynayso apt get markaad update leedahay keligii kuu qaadan maayo markaad enter siiso uu diidi waxaasuu ku odhanaya markaa permission denied marka permission deniedkaasi waxa weeye waxaanad ka horreysay sudo markuu update ka qaadanayo waa inuu u ran garaysmo root ahaan oo rootskii uu tago markaa faylkaasi markaa sudadana saasaa loo adeegsadaa commandkeena kale wuxuu noqonayaa uname buu noqonayaa uname waxa weeye wuxuu ku tusayaa muxuu ahaa informationka systemkan aad adeegsanaysa linuxka versionkiisa datekuu soo baxay markaas marka uname kaliya haddaan qorno aan marka enter siino wuxuu ina tusayaa inaan linux adeegsanayno laakiin haddii aynu dash a isticmaalno uname dash a haddaynu adeegsano wuxuu ina tusi information buuxa marka waa kali waa 64 waa 5.20 waa debian xilligaas soo baxay informationkii waxaad ku ogaan kartaa markaa bahalkaad adeegsanayso markaad u baahato inaad ogaato display inuu ku tusaad u baahato uname baad adeegsanaysaa commandkeena xigaa waxa weeyaan isaguna apt-get waxaa loo adeegsadaa markaad muxuu ahaa soo dejinayso muxuu ahaa package cusub la soo degayso ama aad update garaynayso muxuu ahaa terminalka ayaa apt-get la adeegsadaa marka apt-get install waad adeegsan kartaa apt-get update waad odhan kartaa apt-get upgrade waad odhan kartaa apt-get waxa weeye markaa wixii aad kala soo degayso internetka oo dhan ayuu ku xidhan yahay markaa markaad apt-get isticmaalayso baan meelaha qaar ku shaqeyn maayo marka update-kaas oo kale sidayna markii dhow arkaynay inoo shaqeyn maayo haddayna sudo ka horreysin sudo horreysay ama super user dhow haddayna ka horreysiinin inoo shaqeyn maayo markaa mar walba inaad markaad meel walba inaad isticmaashaa muhiimaha suudada laakiin meelaha qaar buu kaaga dhigayaa daruuri inaad isticmaasho sudo markaa sudo marka apt-get waxaa loo adeegsadaa in muxuu ahaa lagula soo dego packageska cusub ee doonaysa inuu computerka ku shaqeeyo That's the way it is. That's the way it is. Dang.